aad baad mahadsan tahay adiga ibrahim adiga iyo bahda SNTV runtii waa taariikh cusub oo runtii aan hore u dhicin in dagaalkan socda oo qawaariijtu ay ummadan ku habsatay muddada dheer laga soo bilaabo qiyaastii ilaa 16-17 sano miyaa ma aqaano sida ay hadda arrintu marayso inta ugu badan ayaa si koreeyay laakiin muhiimadda ka raaco xilligaas hadda muddada dheer oo ujeeda ummadan ay iska dhibaataysnayd runtii naf iyo maalba ay u dhibaatooday oo u dhaawacantay oo u dhimatay weli ma dhicin qaab noocaan ah madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo halkaas inta mataqaana qaatay waraashadiisii ciidanka sida lagu yaqaan ay qaadi jireen qaatay halkaas dagaalkaas inuu soo afjiro dhinacaas laba maamul goboleedyada soo afjiro u baxay weli taariikh dhacday ma aha marka waa runtii waa wax runtii aad iyo aad ummadda Soomaaliyeed ay maanta ugu faraxsan tahay go'aankaas oo madaxweynaha qaatay runtiina waxaan isleeyahay runtii guul baa laga gaarayaa oo runtii waxay muujinaysaa arrintan inay dabajarkii qawaarij inay tahay ama gabagabadooda inay tahay waa dhiirigelin ay ciidamadu ay u noqonayso arrinta iyada ah waxay dhiirigelin u noqonaysaa maamul goboleedyada halkaas ka jira waxay dhiirigelin u noqonaysaa in qof kasta oo runtii rajo kale in dagaalkan lasoo afjiro marka runtii lama qiyaasi karo runtii saan isleeyahay lama qiyaasi karo anigu runtii waxaan isleeyahay waa arrin maaragtay guul waay calaa kulli xaal professor maxay ka bedeli kartaa dagaalkii awil ciidanka xoogga ay ku jireen oo madaxweynuhuna caasimadda dalka uu joogay ama halkan uu deegaan u ahaa in hadda uu madaxweynaha Dhuusamareeb dego oo maxay soo kordhin kartaa isleedahay inta aqoontaadi ama ogaalkaaga ah aad baad mahadsantahay ibrahim runtii wax badan baan ka hadalnay arrintan oo waraysi noocyada oo kale aan isla yeelanay laakiin kan waa ka duwan yahay wixii hore dhan aan waxa prediction baan sameeynay mar walba waxa laga hadlayo waa la guuleysanayaa kan ay noqonaysaa xagga la mariyaa tan ahaanaysaa waa ka go'an tahay dagaalkan dawladda inay gasho oo ay dhamaystirto oo wax ka go'an waxyaabaha ku hadli jirnay bay ka mid ahayd laakiin tani waxay ugu duwan tahay madaxweynihii baa naftiisii dagaalka qayb ka ah oo nafsiyan u go'aan qaatay inuu xafiiskiisii ka tago oo u guuro mataqaana goobaha ay joogaan qawaariijta dagaalka si toos ah mataqaana inuu barto hogaaminta dagaalka uu goobjoog ka ahaado oo warbixin iyo waxyaabo lamid noocaas u soo sugnaysa goobtii uu ku sugnaado waxay taas marka ka dhigan tahay in ay dowladda federaalka Soomaaliya maanta ay kama dambeyn u tahay in qawaarij la soo afjaro labo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay u tahay runtii moral ability ayay helayaan oo runtii waxay xoojinaysaa madaxweynahoodii oo la joogo oo goobtii dagaalka joogo oo meeshii wax ka dhacay joogo oo ma garanaysa xogtoodii toos u helayo ayay arrintan maartay ugu duwanta kuwii hore waxay arrintan sida ka dhiirigelin weyn u tahay dadka lagu tuhmaaya in ay xiriir la leeyihiin qawaariijta oo hadda qaarkood meelaha qaar hay'adaha dawladda meelo badan laga helaya waxay u tahay cashar bay u noqonaysaa oo madaxweynihii baa toos dagaalka ugu jira marka meel ku ka gaban kara ma jirto mataqaana maxay ahayd hees waxaa jirta la dhihi jiray waa dharaan lagu dhowrayaa dadkaada dhinac ka raac marka waa maalin runtii waa maalin cad meel lagu kala gaban kara ma jiro marka runtii anigu waxaan isleeyahay maanta waa maalin cajiib ah madaxweynihii runtii inuu toos mataqaana u aado Dhuusamareeb u aado halkaasi uu ka dhigto xarunta meel gaar ka dhigto halkaas shaqada halkaas ka wado
وتي فدرال تي كلا ما مقبلات كدجال كجرا لولا جرا خوارج لو حرينا لو صار goobaha khaasatan deegaanada hadda ay ku hareen al-shabaab oo la sheego inay ka mid yihiin ugu weyn tahay runtii magaalada mataqaana Elbour oo runtii ah mataqaana barta ugu weyn ee hadda gabaad ka dhigteen marka leeyahay maxaan ku dhahay nafteeda runtii وعجيب انت معناه لما فلان ويفنتي مدحونا قوان فوقات وقوان عجيب وانا قوان دي قلنا وقوان انكو امانينا وقوان فنتي امد الصومالي دا يو اي دونتو وقوان فنتي سجنو جيسنوي في قوان كيش ورو وقاتي لبجباريسا وقوان امد الصومالي بفرحة دوا intuu madaxweynaha hadda uu dhuusamareeb joogo oo halkaasi deegaanka u sii ahaan doonto waxyaabaha looga baahan yahay in uu madaxweynaha uu qaado ama tallaabooyinka inuu qaado ay mudan tahay oo adiga aragtidaada ah maxay noqonaysaa horta madaxweynuhu waxyaabaha ugu muhiimsan meesha hadda markii uu joogo hor imaan doono waxa weeye waa laba arrimood aan isleeyahay mid koobaad waxa uu ka saarista qawaariista maamul goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug oo dhameystirka fayska koowaad lagu soo dhameystirayo taas waa qodob oo adigu dhan walba u wad adiga ama degmo ay joogaan ama tuulaha joogaan ama magaranaysa meel ay joogaanba ka saarista qawaariista labadaas maamul gobol qaabka soo ay tahayba waa qodobka koowaad oo waa socdaalkiisa ama ujeedka u tagay dhuusamareeb waa qodobka isaga waa biyo kama dhibcaan oo ka xaqiiqan yahay qodobkaas go-aankan waxa weeye ama jahalaad ha noqdo ama askari ha noqdo nooc kasta ciidamada ah in halkaasi si toos ah ugula socdo dhaqdhaqaaqooda iyo waxqabadkooda iyo howlgalkooda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo waxyaabaha ay maaragtay u baahnaan karaan oo loo baahan yahay madaxweynuhu naftiisa inuu si toos ula socdo waa qodob calaa kulli xaal waa kow labo kuurgelid dhab ah uu ka ogaan doono maamul goboleedkaas maamul goboleedyadaas labadaas maamul goboleed especially weliba midda hadda goobjoog macnaha xarunta kumeelgaarka kasii dhigtay oo galmudug xaaladda dhabta oo shacabka Soomaaliyeed ee deegaankaasi ay ku nool yihiin ayuu nafteedu waa qayb uu ogaan doono xaalad nololeedkooda ama qaab nololeedkooda inuu xog dhaba ka helo wixii horumar ay wixii dib u dhac oo maamul goboleedkaas ka jira maamul goboleedyadaas ka jira khaasatan galmudug oo fadhiisamadiisa hadda ay tahay ayaan isleeyahay runtii iyadana waa qayb hor imaan doonto oo maaragtay hawl maalmeedkiisa qayb ka noqon doonto saan isleeyahay waa gartay ugu dambeyntii maxaa ku talinaysaa oo la xiriira in dagaalkan la sii dardargeliyo mar haddii madaxweynihii laftigiisa uu qayb ka noqday dagaalka wasiiro ay ka mid yihiin madaxda ugu sareysa hadda dhuusamareeb tagtay oo wasiirka gaashaandhigga uu qayb ka yahay laftigiisa qaabka wejigan koobaad loo soo gabagabeyn karo iyo wejiga labaad qaabka loo wajihi karo ani waxaan horta kow ibrahim oo aad ugu faraxsanahay waraysi badan oo hore lila yeesho sidaan oo kale ahaa ayaan aad ugu hadli jiray in dagaalka la soo afjiri doono dad badan runtii negative ka bixin jiray in dagaalka uusan dowladda Soomaaliya ay dad uusan ka ahayn in maxaan ku raaddaa wejiga koowaad oo jiitami doono waxyaabo badan oo noocaas dadku walaahow badan iyo shaki badan ayaa dadku lagu abuuri jiray oo socday iban weli rumorskaas weli wararkaas weli waa jiraan laakiin aniga runtii aad waxay maanta si khaas ah ugu faraxsanahay waxyaabihii anigu saaxiibada kale oo faraha badan oo ila aragtida ay ka hadli jireen oo ahaa in dagaalkan dowladda Soomaaliya ay dab ka tahay madaxweynuhu go-aankaas uu qaatay go-aanka madambeyn uu yahay la soo afjari doono marka wejiga koowaad wejiga labaadna uu ka gaabnaan doono wejiga koowaad waqtiga uu qaatay waqti ka yar lagu soo afjari doono guud ahaan
شكلي ما جرى عندي جري runtii aniga saaxiibada ila madahaba saasan aan sinaamood Soomaali inta maartay Soomaali iyo wanaag iyo horumarka iyo amniga iyo mataqaana midnimada iyo maartay iyo maxalliga wadajirka ummadda Soomaali jecelba saasan la aaminsanaa sidii baa muuqanaysa marka runtii waxa ii muuqanaysa runtii Ibrahim beenay waa run bay sababta tiraahdaa marka tan inay tahay beenay waa run wixii been sheegi jiray runtii maartay ishi bogtaa ku bakaacsanayay waa ishi bogtaa ku bakaacso cashar ha u noqoto intii meelaha noolahay oo moodeysay in dawladda Soomaaliya iyo dagaalka ka go'aneen ha arkaan Saxaafadda Sheekh Maxamuud madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maanta inuu fronting goobta lagula dagaalamayo al-shabaab inuu maanta ku sugan yahay oo uu guuray dhinacaas oo fariisamo ka dhigtay shaqo arkaan indhahooda dadkoodana ku maqlaan aad baad u mahadsan tahay Professor Cabdullah aad iyo aad u mahadsan tahay